أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آد بان idii soo wada dhaweynaya dhammaan walaalaha ku xiran channel keenan Fatima Muna channel. aad baan idii soo wada dhaweynaya waqti walba khayrkiisa iyo barwaaqadiisa iyo barakadiisa Allah macbuudka ah inuu idinku arsaaqo يعني ذي كبرية إلهي سبحانه وتعالى. انتهى كبعدي وحن ذي الله هي حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وحا أن شعل هاي عاوة إنا كهدله أرين كسابسا حرية هوينك. حرية هوينك واحد مدة إنه يهي موضوع آد لو كهدله تطبضني كهدلان ودمدينة مسلم كأه waxaad moodaa xorriyadda haweenka iyo xuquuqda dumarka in laynooga soo waarido wadamada reer galbeedka iyadoo markaasi xadaaradda reer galbeedkii ay ku faanayso sinaanta ragga iyo dumarka oo ay waliba qawaaniintaas sinaanta ragga iyo dumarka ay u soo gudbiso wadamada caalamka saddexaad oo ay ugu horeyso wadamada muslimka ah. haddaba arrintaas haddaynu ka hadalno waxa amba hadaynu arintaasi diraasad yar ku sameeyno waxa mudan inaynu isweydiino horta aadi xoreyside adigu xor ma tahay gabadha reer galbeedkii marka ay istiraahdo caalamka maaragtay amba wadamada reer galbeedkii marka ay istirahdaan caalamka saddexaad haweenkooda u hiiliya oo xoreeya kolka hore xorriyadaasi halkay ka timi sideebay ku baratay gabadha reer galbeedkii xorriyadda arrintaasi ayaan jeclay caawa inaan ka hadlo. waqtigu waxa weeyaan 1900 amba qarnigii 19aad goobtuna waa Yurub wadamo badan oo kamida oo Ingiriisku u kamid yahay. caadad amba dhaqan ayaa ay yaqaaniin waqtigan qarniga aynu ku jirnaa waxa uu ka soo bilaabmatay arrintan qarnigii 15aad ilaa qarnigii 19aad way socotay. aan kuugu daray qarniga 19aad waa qarnigii imika baxay waa qarnigii 20aad ku xigay amba si ka horeeyay waqti saa u dheer taariikhda bani aadanka ma aha. Yurub maxaa ka jiray waqtigaa waxa ka jiray dabeecad amba dhaqan ah ninku inuu xaaskiisa u geeyo suuqa oo uu ku gado amba uu ku iibiyo sidii qof adoona oo laga iibsanayo oo qofkii iibsaday uu ka haysanayo. taasi waxa ay uga jabnayd ugana faa'iido badnayd dhaqaale ahaan ninka maaragtay gabadha qaba in uu gabadhiisa ka iibiyo waxa uga fiicnayd in uu maxkamad u tago in laga furo gabadha oo taasina kharash badan uu kaga maaragtay uu ku kalifi lahayd. laakiin haddii uu gabadhiisa suuqa ku iibiyo lacagta uu gabadha ku soo iibiyay ayuu deynta lagu leeyahay iyo masaariiftiisaba ka soo saaranaya gabadhina saas uu uga takhalusaya. dhaqankaasi haddaba waxa uu ka mid ahaa dhaqamada ka jiray wadamada reer galbeedka xilligii uu ahaa qarnigu ilaa qarnigii 19aad. arrintaa haddaad rabtaan in aad hubsataan amba informationkeeda raadisaan waxa Google garayn kartaan wife selling. haddaba dulmiga lagu hayay haweenka reer Yurub intaa muu ku eekayn waxa kale jiri jirtay koofiyad ilaa wajiga xidhaysa ilaa madaxa oo mask ah oo carabka dhexdiisana lahayd qayb kamida oo bir ah oo la gelinayo haweenka markaa lagu xakameyn jiray amba lagu controli jiray. magaca aaladaas loo isticmaali jiray in dumarka madaxa lagaga xidho waxay ahayd Scold's Bridle. marka muxuu ahaa talo Scold's Bridle maxaana loo isticmaali jiray waxa loo isticmaali jiray qalabkaas ka samaysan birta oo ah koofiyad wajigiina daboolaya qofka haweeneydena ay saacado badan ku xidhnaanayso oo xilliga qalabka madaxa lagaga xidhay ayna qofka haweeneydii waxna cuni karahayn hadlina karahayn.
sababta ay ugu xidhi jireen qalabka madaxa iyo wejiga haweeneyda wuxuu ahaa haddii ay gabadhu tahay nagging woman amba waxa loo yaqaano qof haweeneya oo hadal badan hadduu ninkeedu uu dhibsado hadalkeeda oo u arko gabadh sidaynu inagu nidhaahdo jaqjaq badan amba hadal badan madaxa ayuu qalabka kaga xidhi jiray waxaanay u ahayd nooc min alciqaab iyo weliba xakamayn iyo control dumarka xilliga lagu hayay waana google garayn kartaan kelmadda Scots bridal kolley waxay isweydiinaysaan talow maxay gabadha reer galbeedkiihii hiil uga weyday diinteeda kiristanka sababtay hiilka uga weyday waxa weeyaan kitaabkeeda muxarafka ah waxa ku qoran in ay haweenaydu ay tahay sababta dhibaatada amba ciqaabta ilaahay ku ciqaabay bani aadanka oo iyadoo ay tahay sababtii aadam jannada looga soo eriyey xaawo iyo aadamba sababtii jannada looga soo eriyey in ay xaawo mas-uul ka tahay dembigaasi kadib in uu ilaahay uu ku ciqaabay xanuunka foosha iyo xanuunka uurka amba tacabka uurka inuu ilaahay maaragta ku ciqaabay taas ayaa ku qoran kitaabkeeda muxarafka ah markaa sababtaa le ajligeed wax hiila oo ay ka heshay diinteeda ma aysan jirin naskaasi wuxuu ku qoran yahay risaalatu Buulus الرسول الأولى إلى تيموثاوس waxaa naska aakhirkiisa ku qoran in ay لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت لأن آدم جبل أولا ثم حواء وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتت في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل وحويا هوينيدو إيادو كتشرتا ظلمك بدن النوع يحسا إيادو أو هيلنا أنك هيلين دقنك إيا مقرنسا طبيعتها dalalka reer galbeedka ka jira amba iyadoo oo aan hiil ka helin diinta kiristaanka ah midna ee muxarafka ah waxa markaas dhacday in uu wadamada reer galbeedka ay soo mareen marxalado dagaalo culculus sida dagaalka adduunka ee koobaad iyo dagaalka adduunka ee labaad oo dagaaladaasi intii ay socdeen iyo intii kasii horeysayba doorka ragga iyo haweenku ay kala socnaa oo ay dumarku ahaayeen guri joogto amba waxa loo yaqaano housewife oo markaa ay haweenaydu xanaaneyn jirtay reerkeeda iyo caruurteeda iyo weliba waalidka gaboobay ee guriga kula nool dagaalkii adduunyada ee labaad kadib Yurub waxa soo galay horumar badan amba waxay soo maray Yurub iyo wadamada reer galbeedka horumar badan oo xagga industrialka amba sinaacadaha waqtigaas warshado badan ayaa laga dhisay wadamada reer galbeedka warshadahaas badan ee laga dhisay waxa weeyaan shaqaale badan ayay u baahdeen shaqaalahaasina wuu ku filaan waayeen amba shaqaalaha ay helayeen waqtigaas wuu ku filaan waayay waayo sababta ugu filaan waayay waxa weeyaan dagaalkii adduunka ee koobaad iyo dagaalkii adduunka ee labaad ayaa rag badani ku geeriyoodeen marka mujtamacii wuxuu u noqday mujtamac u badan amba majority ka kooban haweenkana xilligaas waxay ahaayeen guri joogto caruurta iyo reerka maaragtay guriga ku xanaaneeya markaas barlamaaniyiinta reer galbeedku amba barlamaanadoodu waxa ay ka doodeen habkii magaranaysa amba fikrado ayay isweydaarsadeen ku saabsan meeshii ay ka keeni lahaayeen shaqaale rag ah oo xoog ah oo uga shaqeeya warshadahaas cusub oo markaa shaqaale badan u baahnayd waxay markaa isla qaateen qaar ka mid ah barlamaaniyiintii waxay soo jeediyeen fikradda ah in Turkiya oo ah wadan aad ugu dhow wadamada Yurubiyaanka ah isla waqtigaasna populationkiisu aad u badan yahay in halkaas laga soo waarido amba laga keeno shaqaale rag ah oo ka shaqeeya maaragtay warshadaha reer galbeedku marka ay samaysteen
kadib waxa weeyaan munaaqashadii amba wada hadalkii ay baarlamaanku ka hadlayeen arrintaasi qaar badan baa kasoo horjeedsaday xildhibaanada baarlamaanka waxay yidhaahdeen haddii aynu wadankan isku keenno rag muslina oo shabaab oo dhalinyaro oo xooga waxa raggaasi kaligood ma joogayaan wadanka waxa dhici doonta berri ka maalina inay noqdaan oo ay xaasasko amba dumar soo guursadaan kadib inay halkan maaragtay ku tarmaan wadankeena oo mustaqbalka wadankeena uuba noqdo wadan maaragtay muslina taasna waxaanu ogolaanayno sinaba aanu ku ogolaanayno ma aha ayay isku raaceen markay taa isku raaceen waxay soo jeediyeen amba xildhibaanada qaar kamid ah waxay soo jeediyeen fikrad ah in maxaynu dabad uga raadinaynaa shaqaale muslina oo markaas populationkeena iyo diinteenaba maaragtay halis ku noqonaya miyayna ka fiicnayn ayay yidhaahdeen in ay 60% amba ka badan mujtamaca 50% in ka badan mujtamaceena ayaa guryaha fadhida oo aan cashuurna bixinahayn shaqaynahayn oo dabadana ka shaqaynahayn haddana isla waqtiga inaynu ajaanib keensano waliba diin kalena haysta oo diinta muslimka ah ay nagu faafto waxa inooga fiican bay yidhaahdeen inaynu haweenaydeena amba dumarkeena ka soo saarno guryaha oo ayaga aynu warshadaha maaragtay shaqo ka siino kambeynka markaas raggii dhaqaalaha mas-uulka ka ahaa iyo siyaasiyiintii ay galeen waxa weeyaan inay haweenka ay u xayeysiiyaan fikradda ah inay qofka dumar yeelato madax banaani ragga ka madax banaan ee haweenaydu yeelato oo markaa haweenaydu ay dhaqaale gaar iyada u ah iyo lacag gaara ayna iyadu samayso iyada oo markaa lagu riixayo amba lagaga faa'iideysanayo in ay noqoto cashuur bixiye mujtamaca dhinac maaragtay cashuurta ka bixisa dhinacna waxay lacagtaas soo geli doonta ee mushaharkay shaqaysato ay ku soo celin doonto dadkii maaragtay ganacsatada ahayd ee ra'samaaliyiinta ahaa waayo haweenaydu markay mujtamac u baxdo markay guriga joogto waxaa laga yaabaa inay aragtideeda amba labiskeeda iyo isqurxinteeda kharash badani kaga bixin laakiin markay haweenaydu noqoto qof shaqaale ah oo mujtamacii u baxaysa oo maalin walba dibadda u baxaysa waxay dantii ku kalifaysaa inay mar walba quruxdeeda maaragtay habqaadkeeda iyo labiskeeda ay kharash badan ay geliso oo qayb weyn oo kamida mushaharkeedii inay halkaa gasho taasoo kusoo noqonaysa lacagtaasi raggii kolkii horeba u ololeynayay gabadhani inay dabadda u baxdo oo ay shaqayso ayaa lacagtii waxay ay ugu soo celisay gabadhani inay qayb kamidana ay noqoto cashuur waynu ognahay wadamada reer galbeedka marka 3 meelood meel loo qaybiyo mushaharada waxa weeyaan qayb ayaa cashuur ah labadii qaybood ee kalena haddii qayb ma garanaysaa dhaqaale badan ay ku gelisay ma garanaysaa in qurxinteedii waxa weeyaan taasina waxay keenaysaa istihlaak amba waxa loo yaqaano amba inay maaragtay wax iibsato oo taas alaabta ay iibsanaysaana ay markaas ku soo celiso lacagtaasi amba dakhligaasi uu soo galo raggii u ololeynayay haweenku inay guryaha ka baxaan oo ay ma garanaysaa caruuraha iyo waayeelkana guriga ku hayaan intay ka baxaan waayeelkana loo sameeyo institutionno amba meelo lagu hayo waayeelka caruuraha yaryarna loo sameeyo institutionno ayagana iyo kindergarteno lagu hayo caruurta yaryar iyo iskuuladii marka waxa bilaabmatay daahirad amba maaragtay habdhaqan cusub oo dhaqankaas cusub wuxuu ahaa waxa loo yaqaano awlaad almafaatiix abnaa almafaatiix waxa lagu yiraahdo carabiga oo micnaheedu ay tahay caruur silsilad maaragtay amba cunaha loogu xiray furayaashii guryahooda waayo caruurta markii hore waalidiintu hooyadu guriga joogi jirtay markay caruurtu iskuulka tagto ay soo noqoto mar walba hooyadii oo guriga joogta amba hooyadiiba iskuulka ka doori jirtay waayo hooyadu waxay ahaan jirtay hooyo guri joogta laakiin isbedeladaas mujtamaca markuu ku dhacay waxa dhacday caruurtii waaweyneed ee iskuulka ka iman karaysay inay markaa furayaal la siiyo caruurtii roorooneed in furayaal la siiyo inay markaa furayaashooda guriga kusoo maaragtay galaan mujtamaca markaa waxa la geliyay fikrado ah inuu qofku uu noqdo qof individual keligii maaragtay isdabari kara ilmaha yar inuu keligii isdabari kara lagu tarbiyadeeyaa in qofka dumar inay keligeed isdabarayso oo dhaqaalaheedii iyo ma garanaysaa inayna qofna wax ka sugin iyadu ay ma garanaysaa shaqaysato ay lacag gooniya iyo madax banaani dhaqaale ay iyadu goonigeeda u hesho
waayeelkii lagu xanaaneynayo guryaha in markaa la dhigo institutiono iyo maaragtay meelo mu'asasado gaara oo loo sameeyey in lagu xanaaneeyo dumar muslina maxay inaga caawinaysaa inaynu ogaano dhibaatooyinka iyo taariikhda madow ee soo martay welina qaybo badan iyo dhibaatooyin badan ay ku jirto haweeneyda reer galbeedkiihi waxay naga caawinaysaa kalsooni badan inaynu ku yeelano diinta islaamka inaynu ogaano xurriyadda iyo sharafta iyo karaamada diinta islaamka ee haweeneyda ay siisay waqti walba iyo zaman walba inaynu ku faano waxaynu nahay oo aynu kalsooni badan yeelano aad iyo aad baa umahadsantihiin intaynu ku kulmi doono kulan kale program kale channelkeenan Fatima Muna channel aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida wacan ee ay la socotaan waxaan idinkaga tegayaa في أمان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه